بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Jamaal Maxamed Jaamac ahna wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan maanta halkan si rasmi ah ugu shaacinayaa carwada iyo shirka tiknoolajiyadda Somaliland Tech Expo and Conference 2025 oo ka qabsoomi doona howlka hay'adda shaqaalaha ee Hargeysa muddada u dhaxaysa 8 ilaa 11 Oktoobar 2025 hadii la hay'admo shirkan oo ah mid sanadlaha kana mid ah dhacdooyinka tiknoolajiyadda ee ugu waaweyn ee Geeska Afrika iyo Somaliland wuxuu sanadkan gelayaa kalkii toddobaad iyadoo si gaar ah sanadkan loogu daray carwo tiknoolajiyadeed taasoo noqon doonta wajigii ugu catirsanaa ee uu yeesho shirku intii la bilaabay carwadu waxay noqon doontaa madal kulmisa shirkadaha tiknoolajiyadda hal-abuurka dhalinyarada ganacsatada iyo maalgashadayaasha shirkadaha caalamiga ah ee tiknoolajiyadda iyo bulshada Somaliland oo si toos ah uga faa'iideysan doonta carwada diiwaangelintu way furan tahay waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan daneeyayaasha tiknoolajiyadda gudaha iyo dibaddaba inay ka qayb qaataan carwada tiknoolajiyadda Somaliland ee 2025 qabsoomaysa si aynu si wada jir ah u dhisno mustaqbal digital ah oo ka turjumaya cimilada casriga ah ee Somaliland. Waad mahadsantihiin.